goordhow ayaa lagu aasay degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug Liibaan Aadan Ibrahim Liibaan Ganey kaasi oo xalay toole lagu dilay gudaha degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug cid ka dambeysay dilka ninkaas iyo sidoo kale sababaha loo dilay ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago ka horse waxaan ka dalbanayaa inaad follow gareyso boggan sharna tiraahid muuqaalkan wararka ka imaanaya degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo waramaya in goordhow gudaha degmadaasi lagu aasay nin askari ahaa sidoo kalena lagu magacaabi jiray Liibaan Aadan Ibrahim Liibaan Ganey kaasi oo xalay toole lagu dilay gudaha degmada Gurceel halka uu dilkiisu ka dhacay ninkaasi ayaa lagu magacaabaa xaafadda 12aad oo ka tirsan degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug waxa la tilmaamay in xaafaddaasi tahay xaafad kamid ah xaafadaha lagu qaylo kuwaasi iskugu wada yimaadaan dadka balwada leh waxaana halkaasi markasta ay ku caweeyaan habeen kaste ha yeeshee xalay waxa la tilmaamay in askarigaasi uu soo qaaday askari kale oo ay ka wada tirsanayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaari uu lahaa ayaa la sheegay in lagu soo qaaday taasina ay keentay in la keeno xaafaddaas 12aad askartu waxa la tilmaamay ku dhawaad hal saac inay ku sheekaysanayeen gudaha gaariga ugu dambeyntiina ay taasi keentay in labada dhinac uu khilaaf xoogani uu soo kala dhaxgalo halkaasina lagu toogto askarigaasi oo lagu magacaabi jiray Liibaan Aadan Ibrahim Liibaan Ganey askariga dilka geystay ayaa la tilmaamay in labadooduba ay ka wada hadlayeen ciidamadii dhawaan laga qaaday magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug kuwaasi oo qayb ka ahaa dagaal ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee dowladda Soomaaliya wado waxa la tilmaamay in askariga dilka geystay oo goobta iskaga faktay kolkii uu dilka halkaasi uu ka geystay marka laga soo tago in murankaas iyo sidoo kale wada hadalka dhaxmaray labada dhinac ay jirto sidoo kale ma jirto wax xaqiiqo ah oo ku saabsan hadalkaas iyo sidoo kale wax dhaxmaray labadaas nin oo lagu ogaa karo ha yeeshee dhacdadaasi waxay tahay dhacdo argagax badan oo maanta si weyn looga hadal hayo guud ahaan magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug falkani ayaa waxa uu yahay fal ka amakaagiyay guud ahaan dadka ku nool gudaha magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug laamaha ammaanka oo ka hadla kiiska ninkan kolkii la aasiyay waxa ay sheegeen in ay baaritaano sameey doonaan sidoo kalena ay sameynayaan dadaaladii ugu xooganaa ee ku soo gacan gelinayaan hay'adaha cadaaladda ninka dilka geystay ayaa la tilmaamay inuu gabi ahaanba goobta uu xilligan fakad ka yahay lamana oga xilligan halka uu ku dambeeyo ha yeeshee waxa socda baaritaano xoogan oo ay wadaan laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Galmudug dilalka noocan waxa la tilmaamay in go'aydii ugu dambeeyay ay ku soo noqnoqdeen gudaha magaalada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug kuwaasi isku geysanayaan dhalinyarada ku nool guud ahaan magaalada Gurceel iyo sidoo kale deegaanada kale ee dowlad goboleedka Galmudug falkani waxa uu yahay falka argagaxiyay guud ahaan dadka ku nool gobolka Galgaduud ayadoona halkaasi uu ka taagan yahay dagaal qaraar oo u dhaxeeya dadka shacabka ah kuwaasi ay ku mashquulsan yihiin guud ahaan hay'adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Galmudug sidii uu damin lahaayeen ha yeeshee dhinaca maamulka Galmudug maanta waxa uu taala tacsi tiiraanya leh maadaama askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Galmudug halkaasi uu ku geeriyooday xalay toole kadib markii halkaasi uu ku dilay askari kale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka lama oga waxa uu ku dambeyn doono kiiska ninkan ha yeeshee dhacdadan waxa ay tahay dhacdo aan fariir ah taasi oo maanta si weyn u hadal hayaan guud ahaan dadka ku nool gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya